xadidaadda yaraynta rakaabka raaca gaadiidka tagaasida iyo gawaadhida basaska ee isaga kala goosho gudaha xeryaha Dadaab iyo gobolada kale ee dalkan Kenya ayaa qayb ka ah la tacaalida lagu yaraynayo faafitaanka xanuunka coronavirus oo saameyn aan wanaagsaneyn ku yeeshay guud ahaan caalamka. waxaana haatan soo ifbaxaya cabashooyin ku aadan saameynta uu ku yeeshay nolosha dhaqaalaha danyarta gudaha xeryaha Dadaab waxaana jirta walaac iyo walwal laga qaba sida xaal ku noqon doono. تكسيلي وأنا تكسيلي شرع يبندو بانو سوقي دولة كينيا سيدا سوليري قاديتك أما باورتا وحراعيا قفكي سدح قف برولك يا عفر كوي أنا قد داب إفو دقحلي ما كشق سنة دتكي ركابكي markaan aan no saddex qof ayaa gaariga haday raacaan lacagta dan ku dar lahayn ama ila qofka shakhsi waaga hor wuxuu ahaan jiray 150 hadda laakiin hadaan no lacagta 200 baa laga dhigay rakaabku waxay leeyihiin 150 ka yar kuma raacayno aniga aqoon weyn baan u keentay sababta ay tahay inta gaariga marka qof saddex qof laga saaro ninka barokaha gaari ku raay lacag 100 shilin ka rabaa gaariga wuxuu rabaa shan shilin lagu shugo 600 سوقل شلون شدالكي إلى عقتي ولا عقلي بقول اسم الله نكى بقول لي العقب بقول شلون كاربا جاري كورة نكى مركز بقول شلون أتكو أسيسو العقب بقول شلون وحلا جاربا دداب إلى عقتي اسمه دنو أنكو سعود واجران باور بدن بايلان صوب تعيد هذا شدال إلى باور وشدال شدال كحلوش بديله ويا محلوش عني وين لسكريا دنتي بحاجة اللي بتدك oo rakaabka baasajii aan qaadayna waxay leeyihiin maya 150 daqiiqo qaadayna waa iska dageen anaga hadaan inta 6 qof iska qaadano ama 3 qof iska qaadano waxay dhibno keenaysaa kuwana barkayaashan waa ina dacweyna askartayno tagaan baawarka naga la xareenay laakiin 6 qof hadaan qaadna Dadaab okay waa laakiin foon uu la qabani makaango gaariyaashan baarara gaariyaasha ifiyo dhagaxley ila Dadaab ila Daafuur baarara horda maxaan saari jirnay 6 ilaa gadaal 4 10 baan saari jirnay 10 kiyad waa la isku imaaday hadda yani cudur baa la sheegay cudurkii daraadiis hadda inaan saarna aan qasbanahay 4 ilaa 3 intaas gaariga aan saarno shidaalkiina ilaa dhagaxley ma geynay gaarigi lacagtiisa dala fiiriyo in aan dayno gaariyaashin naga xareeyo anakan shaqo la'aan naqana baydii waxaana hay ajanti basaska markaan ka waramo saameynta ay nagu yeeshay bandagu aad iyo aad buu noo saameeyay waaga hore basasku waxay noo qaadi jireen basku waa 60 kursi 60 ka kursi markaan dad helo 60 ka waan fadhiisin jiray hadda waxa la yiri waxa la idin ogol yahay 30 qof kursiga labada ah hal qof baa loo ogol yahay inuu fadhiisto kursiga saddexdaana baa leeyahay qofka dhexda ugu baxaya wixii ka badan baa leeyahay 30 qof ama ilaa 35 qof nalooma ogola marka saameyn aad u fara badan buu hadda uu noo keenay intii ma nala saaray kafiyowga nala saaray dhanka kalena gudoomiyaha guud ee gaadiidka tagaasida xerada qaxootiga Xagadheer ayaa isna dhankiisa tilmaamay in xaaladda gaadiidleyda tagaasidu tahay mid cakiran oo cabashadeeda leh saameynta yaraynta rakaabkuna tahay uu yiri bilowga shaqo la'aan soo food saari karta gaadiidleydaas Abuukar Cabdullaahi Yuusuf baabuurta Xagadheer aan chairman u ahay oo maamulkooda aan hayaa marka alxamdulillah nabada jirta wax dhib ma jiro waxoogaa dhaqdhaqaaqana wuu yaraaday dhaqdhaqaaqana maadaama cudur la sheegay cudurkii magaalooyinka hadda saameyn badan buu noo keenay saameyn badan yuu noo keenay runtii isku socodkii magaalooyinkii baabuurtii inta ka baxaan ilaa dhagaxley bay tagaan kuwii dhagaxleyna ilaa Xagadheer ay maadaan ifo sidoo kale Dadaab sidoo kale isku socod baa jiray baabuurtii marka dawladdu way soo dhaxgasho maxaa la yiraahdaa baabuur rakaabkiisa inta uu qaadi jiray qaadi karo malaha arrinka marka dadkii beecshiraleeyda baabuureeydi maxay u keentay saameyn weyn oo dadkii beecshiraleeyda ah baabuurta ugu xamaalanay ilmay u shaqaysanayaan ilmay iskuulo looga bixinay nin walba dana gooniyo lahaa haddii baabuurkii la dheelabo qof ama 3 qof ka badan ma qaadi karo runtii meesha maxaa ka imaatay carqalada weyn baa ka imaatay si kastaba ha ahaatee saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ayaa ah hadalhaynta xeryaha qaxootiga Dadaab waxaana jirta hoos u dhac dhaqaale oo saameysay bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin danyar badan oo haatan dabkoodu baqtiyay Bashiir Gaxnuug RTN xeryaha Dadaab